Assalaamu calaykum. Xilliyada xagaaga weliba marka dayaxu soo jeedo xeebaha Maraykanka qayb ka mid ah, dad caafimaadka ka shaqeeya ayaa waxay ku sugayaan xayawaan dhiiggiisu qaali yahay oo dadka adduunka ku nool faa'iido weyn u leh. Haddaba xayawaankan ayaa waxaa la dhahaa horseshoe crab. Dhiiggiisu waa buluug maadaama uu dhiiggiisa ay ku jirto macdanta nuxaasta copper Ingiriiska lagu dhaho, halka annaga dhiiggeena ay ku jirto macdanta birta iron. Haddaba sanad walba xayawaankan iyagoo kumanaan ah ayay xeebta u soo baxaan si ay ukuntooda xeebta ugu aasaan. Halkaa ayaa dadkii sugayay ka qabqabtaan oo sanad walba waxaa la qabtaa 500,000 oo xayawaanadan ka mid ah si dhiigooda loo miirto. Dhiigga xayawaankan ayaa aad qaali u ah oo halkiisa litir waxaa lagu qiyaasaa $20,000. Haddaba waa maxay waxa keena in xayawaankan dhiiggiisa laga shubto sanad walba iyo faa'iidada uu u leeyahay dadka? Horta marka hore xayawaankan wax xididda ah ma leh oo dhiiggiisu jirkiisa ayuu ku faafsan yahay. Faa'iidada ay xididadu u leeyihiin dadka iyo xayawaanada leh ayaa waxaa ka mid ah in markii bakteeriya ay jirkeena soo weerarto ay xididada dhiigga qaada ay fadhiyaan askar jirkeena difaacda oo loo yaqaano white blood cells ama unugyada dhiigga cad. Unugyadan ayaa bakteeriyada weerarta intaysan u gudbin xubnaha jirka ee muhiimka ah. Haddaba horseshoe crab maadaama uusan lahayn difaacan oo kale ayaa Ilaahay wuxuu ku manaystay qaab kale oo cajiib ah oo uu isku difaaco. Markii ay bakteeriya soo gasho dhiigooda buluugga ah, isla markiiba dhiigga ku hareeraysan bakteeriyadaas wuu xinjiroobaa si aan loogu ogolaan in bakteeriyadaas dhaqdhaqaaqdo oo xinjirahaasi u noqdaan xabsi aysan ka bixi karin ilaa ay bakteeriyadaasi ka baqtido. Laakiin annaga dhiiggeenu sidaas isuma difaaci karo sababtoo ah haddii dhiiggeenu xinjiro noqdo, xididada ayuu xirayaa oo halis ayuu nafteena gelinayaa. Laakiin xayawaankan aan xididada lahayn, istiraatiijiyad uu isku difaaco ayay u tahay. Haddaba sanad walba 500,000 oo xayawaanadan ah ayaa dhiigooda laga shubtaa, iyadoo xayawaan kasta 3 meelood oo meel dhiiggiisii laga shubayo, hadhowna dib loogu celiyo badda si sanadka dambe mar labaad dhiiggiisa laga shubto. Danta laga leeyahay dhiigooda ayaa ah in la ogaado qalabka iyo dawooyinkan isticmaalno in wax bakteeriya ah ama jaraasiimta cudurrada sababta ay wasakhaysay. Sababtoo ah dhiigooda markii lagu shubo meel bakteeriya ay joogto, xinjiro ayuu noqonayaa, taasoo u tilmaamaysa dadka caafimaadka ka shaqeeya in bakteeriya halkaa laga helay. Haddii aysan xinjiro dhiigoodu noqon, macnaheedu waxa weeye in wax bakteeriya ah aan halkaa laga helin. Marka qalabka caafimaadka loo isticmaalo qayb badan oo ka mid ah ayaa lagu fiiriyaa dhiiggan. Xataa waxay u badan tahay in adigu faa'iidada dhiigga xayawaankaas uu ku saameeyay haddii maalin maalmaha ka mid ah uu dhakhtar kugu duray cirbad ama silinge maadaama dhiigga xayawaankan lagu baaray. Intaas ayaan ku soo koobayaa faqradeeni maanta. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.